waxaana loo sheegay laba guriyo halkaa ku yaalla inay imika moobila ka qaadeen waanu soo soconnay dhowr baanu ka soo qabanno oo kuwan baabuurta noo saaran waxaanu goobtii ugu tagnay xashiishadii oo duuban oo lacabiyey meesha wax lagu iibsado waad yaabaysaa habeenoo dhan gidaarada la wada fadhiyay wax wada cabayo oo wax loo aad yaabayso iyo albaabada kaabada la soo fadhiistaa howlgalkaasi waxa lagu soo qabtay 3 eedaysane oo mid ka midii uu bas watay baskiina waa la soo xidhay oo isaguna uu xidhan yahay waxyaabaha wanaagga ka soo baxay howlgalladii xalay iyo habeen hore waxa ka mid ah dambiilayaal la'aan muddo fara badan ayaa xalay lagu qabtay degmada Axmed Dhagax dhammaan halkan waxa kuugu dhan 4 saldhig oo soonka gacan libaax wada leh inay ka wada hawl galaan dhammaan dhulka ka dhaxeeya gacan libaax leedahay waa guul weeyaan waxa soo la xirxiray oo xashiishada arkaysaan ee la guntay ee la xirxiray ayay soo qabteen waana u mahad celinaynaa ciidanka booliska in ka hawlgala gaar ahaan in saldhigan Dololdo bileysku iyagoo qaadanaya awaamiirta taliska bileysku bixiye ah in dadweynaha laga qabto waxa dhibaatada u geysanaya xashiishada ah waxay la xidhiidheen ninkii xashiishada iibinayay iyadoo la iska dhigayo inuu yahay qof ka iibsanaya sidaas ay ugu soo dhawaadeen markii lacagtii loo diray ayay dabeetaneen xashiishada meel baan ku dhigaynaa adoo saasa loo daba galay qaabkaas lagu soo qabtay ku salaamaya salaanta islaamka qof walbana waxaan ku salaamayaa mansabkiisa iyo magaciisa waayo hawl badan bayna sugayso waxaynu u baahannahay inaynu soo koobno waxaynu joognaa degmadii gacan libaax runtii gudoomiye ku-xigeenka degmada gacan libaax Mustafa waa nin aqoonyahana gudoomiyuhuna waa nin aqoonyahana si fiican bay u soo jeediyeen bandhigoodii iyo hawlgalkoodii iyo khariidadoodii iyo maabkoodii waa 5 degmo waa 5 xaafadood sida ay soo jeediyeen baynu ku hawlgalaynaa ujeedadeenu leenahayna mar walba waa isku wada mid ujeedadeenu leenahay waxa weeye inaynu kormeero oo u koorgallo oo indhaynayno haddana aynu qiimayno dabadeedna aynu sugno amniga caasimadda waxa weeyaan waa ujeedada koowaad aynu hawlgalka ka leenahay ujeedada labaad aynu hawlgalka ka leenahay waxa weeye inaynu ka hortagno dambiyada dhacaya isla markaa dambiyada dhacaya inaynu qabanno labada ujeedo ayaynu leenahay waxana aynu arinta ku wajahaynaa iskaashi taliyayaashii ciidamada guud ee dalka ayaa jooga waxa jooga qaybihii kala duwanaa ee ciidamada booliska waxa jooga qaybihii kala duwanaa ee arrimaha nabadgelyada iyo amniga security agencies oo dhan baa jooga waxa jooga oo hawshan ka qayb qaadanaya labadii taliye qaybeed ee galbeed iyo bari waxa jooga gudidii xumaan reebista iyo wanaag farista waxa jooga gudidii nabadgelyada ee gobolka waxa jooga gudidii nabadgelyada ee degmada oo dhan baa jooga inteenaasi waynu iskaashanaynaa gudoomiyihii degmada gacan libaax gudoomiye ku-xigeenkii degmada gacan libaax xogayihii degmada gacan libaax xogayihii guud ee gobolka Maroodi Jeex nuuriya naaleeyaba waa loo joogaa dad badan waxa kaloo jooga agaasiyay xildhibaankii degmada ayaa jooga agaasimihii nabadgelyada ee caasimadda jooga waxa jooga gudoomiyihii gaarka ee caasimadda marka waynu iskaashanaynaa waxyaabaha wanaagga ka soo baxay hawlgalladii xalay iyo habeen hore waxa ka mid ah dambiilayaal la'aan muddo fara badan ayaa xalay lagu qabtay degmada Axmed Dhagax waa wax qiimo leh qolada immigrationka ayaa iyaguna inala jooga waxay gali doonaan hudheeladeeda way baarayaan dadka seexanaya dadka qoran iyagoo sidoodaba u hela
oo mar walba habeen walba way helaan dad baa uga shaqeeya cidda seexanaysa ee sariiraha seexanaysa way helaan laakiin imikana way ku sii bilaabayaan ajnabiga kale arkaan way sii eegayaan ajnabiga kale laftirkooda meelaha ay ku jiraan noocyada kala duwan leh oromadoo kaliya maaha ajnabi badan oo kale ayaa degan degmada iyo magaaladaba jooga waa loo fiirsanayo waa la eegaya waxa ujeedadeenu ay tahay in aynu amnigeena guud ahaan aynu sugno caasimadii sugno si caasimadu caasimad u noqoto amniya oo lagu soo hirto magaaladan Hargeysa waxay ahaan jirtay sida uu